Wadayaal meel walba joogtiin waqtigani waxaan waadahan samaado arinta maanta hayna waa arin la yaab badan oo ka dhacday magaalada Hargeysa fanaanada la leeyahay Najma Nashaad oo arimo la yaab badan laga soo sheegayo maadaama Bashiir Hanuuni is arooseen Bashiir Hanuuni maadaama aroosay arimo la yaab badan oo soo ifbaxay ayaa waxa sheegayaan fanaanada la leeyahay Najma Nashaad in ay markii Bashiir Hanuuni aroosay in uu ninkii ka soo tagtay uu qabay una madaxeeda soo siinin ama una soo furin waa arintii uu la yaabka badneed magaalada Hargeysa ka dhacday waxa sameeyayna waa fanaan Soomaaliyeed oo fanaanadaas oo Soomaalidu dhan agtooda ee magac ku leedahay fadlan waxaan si sharaf la kaaga codsanayaa inaad muuqaalka like saartid channelkan subscribe oo gambaleelka u furtid waa arin la yaab badan oo ka dhacday magaalada Hargeysa maadaama fanaanadaas ay arin aad u la yaab badan sameysay ninka qabayn oo hal cunug ka dhalay hal cunug ka dhalay maxume ee soo furin la soo furin mana la soo furin ee Bashiir Hanuuni ayaa aroostay kadib ayaa waxa madaxa furtay ninkii hore Najma Nashaad qabi jiray miday walaalayihiin ayaa madaxa furtay oo afkiisa celin waayay ayuu wuxuu yiri qoftaaneeti oo ordayso ninkii qabay waa aniga walaalkayga ee madaxeeda lama soo siin mana la soo dalaaqin ma la soo furin Bashiir Hanuuni sidee ku aroosi kartaa mana dhici karto waa arintii ula yaabka badneed maadaama uu ninkii hore u qabay uu ka aamusay ka gaabsada arintaasi Najma Nashaad waxay u maleysay in uu ninka ayada ka cabsanay laakiin ninka oo asigana afka furtay qabay hore u qabay ayaa wuxuu yiri Bashiir Hanuuni meesha doonta ha u raacdo aniga wax igama galin cunugayga aniga haasanay aniga aan korsanaya qof ayadoo aanan furin iga dhaqaajisay hadhow hadaa cunug siiyo ama ku wareejiyo waxaan ka cabsanayaa inay cunugaygan dariiq cidla ee ugu dhaqaajiso taasina ma yeelay cunugayga aniga korsanayo oo haasanayo waa arin la yaab badan fadlan muuqaal la yaab badan ayaan kula wadaagi doonaa daawade waxa sameeynaya waa qoftii fanaanadii caanka ee Soomaalidu dhan magac ku leeyahay oo Najma Nashaad la leeyahay maadaama Bashiir Hanuuni cunugii ayada ee dhashay dartiis ay ugu soo tagtay ninka la leeyahay Bashiir Hanuuni waa la yaab Bashiir Hanuuni wuxuu u sheegay fanaanada fadlan soo dhawaada daawadayaal muuqaal la yaab badan ayaa soo dhacayo fanaanada markay aroostay waa arin la yaab badan fanaanadina ma la furin waana la qabaa nin ayadoo qaba ayay nin kala aroosay subxaanallahi azza wajal soo dhawaada daawadayaal waxaan la wadaagi doonaa muuqaal aad la yaab badan maadaama fanaanad Soomaaliyeed ee arinta ay sameysayna waa arin aad loogu argagaxo soo dhawow daawade fadlan muuqaalka like saar gabadha sharci kuma qabo wariya sharci kuma qabo waa inuu ninka u celiyo haduu mursaday iyo haduu awiyiis anagu ma naqaan sharci aan ka hadlaynaa anagu sharci inta soo jeerbay gabadhaas ku kibirtay ka orday waa markii shanaaday ka orday wiilka jisbi qaar baa wuxuu ku leeyahay mawlidu mar